Assalaamu calaykum. Magacaygu waa Cali Maxamed. Waxaan rabaa maanta inaan kuu sheego 5 arrimood oo haddii aad samayso ay arrimahaagana ku hagaagayaan. Laakiin dadka inta badan waxay ka fikiraan qaabka ay arrinta toosba u wajihi lahaayeen. Laakiin anigu waxaan isleeyahay waa laga horeeyaa. Waxaan rabaa inaan mid idinkugu sheego inaan hadalkaydu ku daalinaynin. Waxaan u baahannahay inaan mid walba mid aan u dul istaagno. Sidaa daraadeed, number 1 waxaan leeyahay doorasho sax ah. Marka hore arrin aad doonto aad hami leedahay, aad arrin aad rabtid inaad samaysid ama hamigaaga aad ka gugaartid ama riyadaada aad meel marisid, waa inaad marka horeba doorashadaada ansaxdaa. Doorashadaada ansaxdaa maxaa ugu danleeya? Waxaa laga yaabaa inaad dooratid arrin laakiin mar dambe aad ka shalayn doonto. Waxaa laga yaabaa arrin inaad dooratid aynaan munaasab ku ahayn laakiin ay nafta u jeclaatay. Waxaa laga yaabaa arrin diin ahaan aanan wanaagsanayn oo aanan xalaal ahayn oo aad intaad jeclaatay aad dooratay oo aad gashay hadhowdin aad ka shalayso. Sidaa daraadeed, furaha mar walbaba ee guushu waxay tahay inaad dooratid wixii aad jeceshahay, laakiin aad sal iyo beys aad uga dhigtid Ilaahay raalli ma ka yahay. Marka hore waxaa fiirinaysaa waxaan ma jeclaatay aan Ilaahay raalli ma ka yahay. Haddii aadan aqoon u lahayn ama arrin adag ay tahay, la tasho dadka aqoonta iyo cilmiga Ilaahay u siiyey, weydii. Haddii ay Ilaahay uu raalli ka yahay ay arrin saxana tahay jeclaatay, ku dhaqaaq. Waxbana ha ka shakin, hana ka laabalabayn. Haddii laakiin Ilaahay raalli ka ahayn, si kastoo aad u jeceshahay meesha ku gooy. Lianna wax kasta ee xun oo Ilaahay dartiis aa uga tagto oo wahaajirto, Ilaahay wuxuu kugu bedelayaa wax kale oo ka khayr badan. Talabaad, dadaal. Inaad waa dooratay wixii aad jecleed, waxaa loo baahanyahay marka inaad ku dadaashid. Dadaal inaad ku dadaashid. Dadku waxay ku kala tageen dadaalka. Qof kasta wuxuu jecel yahay hadduu siday tahay ugu dadaalo uu ka miro dhaliyaa oo waqti yar oo kooban. Qaabkee loogu dadaalaa marka? Waxay tahay marka waxa aad jeceshahay rabtid inaad ku guul gaartid, waxaa la fiiriyaa dadka kaaga horeeyay ee sameeyay. Qaabka ay mareen ayaa la darsaa. Guusha ay gaareen ayaa la darsaa. Sidaa darteed, adiguna natiijadii oo kala gaari haddii aad samaysid qaabka ay sameeyeen. Tusaalooyinka way badan yihiin. Haddii aad rabtid guul inaad gaartid, waxaad raadisaa waxa aad rabtid inaad guul ka gaartid. Qofka gaari guul waa la darsaa, waxa uu sameeyeyna waa la koobiyeeyaa, waa la sameeyaa. Waxaad gaari doontaa natiijadii uu gaaray amaba ka fiican. Marka haddii tusaale aad u baahan tahay inaad baratid computerka ama programmingka qaas ahaan, waa inaad fiirisaa dad programka meel ka gaaray. Waxaad fiirinaysaa marka buugaagta ay barteen, waqtiga ay geliyeen, waxa ay xoogga saareen asaasiyaadka u ah. Markaas ayaa adiguna ku dhaqaaqaysaa qaabkay u sameeyeen. Waxayna u badan tahay inay natiijada ay gaareen oo kale inaad gaarto. Dadaalka naftigiisu wuxuu u baahan yahay inaad uga fiirsato. Iska dadaal maaha. Waxaad jeclaatay waa inaad ku dadaashaa oo kaliya iska gal maaha. Waa inaad darastaa. Haddaad u baahan tahay inaad baratid computeriska, maxaa rabtaa? Computerka waa ballaaran yahay. Waxaan u baahanahay inaan barto programming, okay? Programka wuu ballaaran yahay ka u baahan tahay inaad baratid. Tusaale waxaan u baahanahay inaan barto JavaScript. JavaScriptiga ayaa qaadanaysaa marka buugaagtiisa sii dooranaysaa, kaas aad gelinaysaa. Dadaalka waxaa kaloo kusii jiro imise saacadood ayaa u qoondaysa isbuuci ama maalintii inaad gelisid. Intaas marka aad geliso, waxaan u tagaynaa marka qaybtii saddexaad, taasoo ah inaad daa'imtid. Doorashadii waa saxday, dadaalkaagina waa saxday. Hadda waxaa u baahan tahay marka inaad ku daa'imtid.
inaad daa'imtid. haddaad maanta bilowdid berina aad isaga tagto hadda waxba kama jiraan, wixii oo dhan waxay noqonayaan khasaaro. saa daraadeed waxay u baahan tahay inaad daa'imtid. wixii la daa'imana waa lagu gaaraa. wixii la daa'imo maskaxda ayay degaan, sidaa darteed waa kuu suuroobayaan. daa'imista marka axaadiis badan xataa waxaa kusoo aroortay inuu ilaahay subxaana watacaala uu jecel yahay axadkeen camal wanaagsan hadduu u bilaabo inuu daa'imo camal wanaagsan haddaa bilaawdid waa inaad daa'imtaa. saa darteed meelnaha uga tegin ilaa aad ka miro dhaliso, waa inaad daa'imtaa. daa'imka oo qodobka saddexaada waxay noo geynaysaa marka u tegaynaa qodobka afaraad oo ah isagana mid muhiima. waa inaad dabagal inaad ku samaysid. dabagal waxaa ula jeedaa wixii aad samaysay haddaad doonto maaliyan yoomiyan ayaad dabagal ku sameynaa ama feedback. waxaad leedahay maxaa kuu qabsoomay, halkee maree, maxaa ka gugaartay, maxaa kuu dhiman, maxaa kugu adkaaday. waxaasoo dhan inaad cabirto oo raadiso u baahanta. laakiin haddii aad iska wado waxay noqonaysaa inaadan ogeyn wixii kuu saxmay, inaadan ogeyn halka aad marayso iyo inta kuu dhimanba. saa daraadeed waxaa u baahan tahay inaad dabagal ku samaysid oo aad samaysatid liis samaysid oo mid walbaba aad samaysay inaad tig saarto waa saxay waan sameeyey. mid walbaba liiska saar. liiska aad samaysay ayaa mid walbaba waxaad leedahay kan waan sameeyey, kan waan sameeyey, kan waan sameeyey, kan waan sameeyey. waxaad ogaanaya marka inta kuu dhiman iyo intii aad soo dhaaftay. haddii ay jiraan kuwo ku dhibay ay kugu adkaadayna calaamad gaara ayaad samaysanaysaa oo saaraysa si aad u ogaatid inay kaaga baahan tahay dib u noqosho. taasi waa dabagal. waxay noo keenaysaa marka qodobka shanaad oo ah midda ugu muhiimsan dadka inta badan iska indhatiraan. waa mid aada xaqiiqatan muhiim u ah, waa ducada. doorashadii aa saxday, waa dadaashay, waa daa'imtay, waa dabagashay. waa inaad ducaysataa oo ducadana daba dhigtaa. ducada marka awalkeeda iyo aakhirkeeda waa loo baahan yahay, laakiin waa inaad ducaysataa mar walbaba. lianna waafajinta ilaahay iska leh. wax walba jeclaatana ilaahay ku waafajin karo. si kastoo ugu dadaashidna ma helaysa haduusan ilaahay ku waafajin. saa daraadeed ducadoona waa muhiim inaad ku celcelisaa. waxaa laga yaabaa marka adiga inaad isweydiisid intaasba inaad samaysid welina ay kugu adkaadeen. ha murugoon, sababtoo ah adigu ma ogid wixii kheyr kuugu jiro. ilaahay ayaa og. mar haddaad ducaysato ilaahay talada u dhiibatay, ilaahay ayaa waxaa laga yaabaa wax aad jeclaatay inaynan maslaxad kuugu jirin uu kaa wareejiyo, uu wax kaloo ka kheyr badan oo ku siiyo. saa daraadeed ma aha wax kasta aad barisay aad ku dadaashay haddii aad weysay inay tahay murug kugu soo degatay. ma aha. waxaa laga yaabaa shaygaas inay maslaxad diineed iyo mid adduunyo iyo mid caafimaad iyo mid kastaba inaysan kuugu jirin oo ilaahayna uu ku muutinayo. wax walba oo arrintaadana sidaas uga fikir. haddaad sidaas ugu fikirtid waxaa haysaa wadadii saxneed. waxaa haysaa dariiqi aada ku gaari lahayd guusha. ha murugoonin, hore u soco, hamigaagana waafaji, waadna u qalantaa guusha. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatu.